السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرتنا شرفتنا ونقد نقبرتين وركي وربحنيدا دلكينا هوية فهد ياسين وكهالليا قلمدو صولا بشدا شيخ شاكر iyo baabulka kooxda ahl sunna waa mid gadaal uu ka riixayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo qaar mucaaradka ka tirsan waana mid lagu doonayo in lagu carqaladeeyo doorashada dalka burburinta maamulka galmudug iyo in deegaan doorashada lagu soo koobo hal magaalo iyadoo heshiisku uu ahaa laba magaalo ummadda Soomaaliyeed ha ogaato in dadkan la magac baxay midowga musharaxiinta inaysan wax dano ah ka lahayn xasiloonida dalka iyo jiritaanka dawladda Soomaaliyeed haddaba maamulka galmudug oo dhan loo burburiyo dano qaas ah oo aan la fiirin danaha ummadda Soomaaliyeed runtii midowga musharaxiinta waxaan leeyahay doorashada inay halkan soo gaarto idinka ayaa sabab u ah mana idin suurto geli doonto inaad dalkeena ka fulisaan dano shisheeye waxaan idin fiican inaad u turtaan ummadda Soomaaliyeed oo 30 sano dagaal iyo barakac ku jiray kooxda ahl sunna haddaysan ahayn ujeedkooda burburinta maamulka galmudug oo uu yahay la dagaalanka argagixisada al-shabaab waxay aadi lahaayeen furimaha dagaalka oo waxay garab istaagi lahaayeen ciidanka xooga dalka ma aysan aadi lahayn guraceel oo aan ognahay in ay tahay meel nabadoon oo wax dhib ah ka jirin waa masiibo darro in ummadda Soomaaliyeed mar kiiska Ikraan mar ahlu sunna marba meel lala aado insha Allah wado kasta ayaan u maraynaa aniga iyo madaxweyne Farmaajo badbaadinta diinteena dalkeena iyo dadkeena shacabkeena ayaa garab ka haysanaa fikirkaaga hoos noogu reeb commentiga dhaafin adoon share garayn fadlan gaarsii shacabka Soomaaliyeed adooga Soomaaliya ha jabo ku soo biir page-keena halgaad media